بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان صباحين كقاعد الطناع مد كمد علماء جوا وينيد المسلمين تا وأنا أحمد بن حنبل إلهي سبحانه وتعالى هون حرسته. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وإمام كمذهب كحنابلة أو حلقان أن جوجنوكو بدن ودن كالسعودية وحو كدشay magaalada Baghdad sanadkii 146 hijriyada aabihiina waxa uu geeriyooday isagoo 3 jir barashada xadiiska waxa uu ku bilaabay 15 jir xilligaas oo ku beegnaa sanadkii uu geeriyooday Imaam Malik Allah u naxariistee culimada wax ka bartay waxa kamid ah Sufyaan ibn Uyayna Qaadi Abi Yusuf Imaam Shaafici Abdurrasaaq as-Sancaani قطيبة ابن سعيد iyo culimo kale oo tiro badan imaamku wuxuu ahaa muhaddis aad iyo aad ugu xeel dheer aqoonta xadiiska waxa xadiiska ka wariyay Bukhari Muslim Abu Daawud sheekhiisi Abdurrasaaq as-Sancaani Imaam Shaafici iyo muhaddisiin kale oo aad u heer sareeya Imaam Ahmad ibn Hanbal waxa uu lahaa darajo aad u sareysa isaga oo madax ku ahaa aqoonta xadiiska iyo fiqiga iyo cibaadada ficiisa ardadiisa iyo sheekhyadiisuba aad ayay uga haybeysan jireen una qadarin jireen waxa uu caan ku ahaa dhowrsoonaan suudi afgaabnaan dulqaad kibir la'aan iyo gacan furnaan afarta imaam ee madaahibta isaga ayaa ugu geeri dambeeyay xilligiisina waxa batay bidcooyinka oo aad ula diriri jiray ilaa uu sheekhiisi Qutayba yiri Ahmed la'aantiis bidca badan ayaa ay diinta ku dari lahaayeen Ahmed waa imaamka adduunka Imaam Shaafiicina waxa uu ku tilmaamay Baghdad markii aan ka soo baxay kagama soo tegin nin ka fadli badan ka aqoon badan ka fiqi badan kana alla cabsi badan Ahmed ibn Hanbal waxa uu ahaa nin dheer oo midabkiisu maarin yahay oo aan kaalmo dhaqaaleed cidna ka qaadanin waxa uu quudan jiray waxa uu xooggiisa iyo caqligiisa kula soo baxo oo kali ah xilligii khaliifkii al-Ma'muun ayay bilaabatay fitnadii loo yaqaanay fitnadii abuurka Qur'aanka taas oo imaamka iyo culimo kale oo badanba lagu ciqaabay oo aad loo jirdilay 28 bilood ayuu xidhnaa oo shaabugeyn iyo ciqaab kaleba lagu waday markii ay kari waayeen ayay iska sii daayeen dhacdadan waxay sababtay in Imaam Ahmad ibn Hanbal lagu naanayso imaamkii ahlu sunnaha imaamku ma qorin kitaab fiqi ah balse ardadiisii ayaa ururisay hadalladiisii dhaxalkii uu ka tegay waxa kamid ah diiwaanada xadiiska ugu weyn Musnad Imaam Ahmad oo ay ku qoran yihiin ilaa 40,000 oo xadiis iyo kitaabo kale oo mawduucyo kala duwan ku saabsan sanadkii 241 hijriyada ayuu geeriyooday Imaam Ahmad ibn Hanbal isaga oo uu u bilowday sanadkii 88aad Allah u naxariisto imaamka muuqaalkan waa muuqaalkii ugu dambeeyay oo aynu kaga hadlaynay afar kamid ah culimadii caanka ahayd